شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. السلام عليكم. رمضان wanaagsan daawade. waxaa jirta xaalad kala xirnaansho caalamka, qofba qofka kale waa ka dheeraanaya, intaasna waxa laga fogaanaya ama laga taxadarayaa cudurka galaafsan nolosha dad hadda tiradoodu ay kor u sii dhaafayso 200,000 oo shakhsi, halka tirada dadka uu ku dhacay ay sii siqayso wax ka badan 3 milyan oo ruux. adduunkii oo sidaas ah waxaa soo gashay bisha barakaysan, bisha cibaadada la sii kordhiyo, bisha ajarkeeda alle oo kaliya ogyahay, bisha aysan jirin maalinkii wax cunid iyo cabida alle dartii. bishaan caafimaadkaaga sidee u saamaynaysaa, maxayse ka beddelaysaa, xalse ma u noqon kartaa cudurkan covid-19 ee cabsida ku haya bulshada? muuqaalka maanta ayaan si wanaagsan uga hadli doonaa waxa bisha ramadaan ay faa'iido kuugu tahay. daawo muuqaalka oo dhammaystiro. haddii muuqaaladan oo kale ka heshidna like saar, hana iloobin inaad sii shaargarayso si bulshada walaalaheena ay ayagana wax uga faa'iidaan. aan bilaabo muuqaalka. waxaa jira bandow meelaha qaar, sidoo kale waxaa xiran masaajidada, kamana marna inuu qof kastoo ku jiro xaalad taxaddar ah. intaasi oo jirtana waxaa noo timid bisheenna barakaysan ee ramadaan. ramadaankan waa uu ka duwan yahay kuwii hore eena soo maray. waxa uu ku soo aaday xaalad uu caalamka wada saameeyey, saamayn kaliya maahan uu dhinac dhigay waddamada caalamka cudurkan, uuna keenay fayruska corona ee loo yaqaan magaciisa covid-19. bishaan soon waxa ay soo bilaabatay 23 abriil, waatan cibaadada la badiyo, sidoo kale waa bisha uu qur-aanka kariimka qoolka eeba ku soo degay ama loo waxyooday rasuulkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam. sida caadiga ramadaanka waxaa sooma qofka awoodda u leh inuu soomo bisha ramadaan iyo inta uu waajibka ku yahay, waxaana la iska dhaafaa cunto cunista iyo biyo cabista, ka soo bilow salaada subax ilaa salaada maqrib. sida caadada ahna afurka waxa uu isku keenaa dadka si ay wada cunteeyaan, masaajidadana taraawiixda ugu wada tukadaan. bishaan soo qaad waxay ahaan jireen masaajidada kuwo jamiico badan, laakiin hadda waxaa jira qaarkood waa xiran yihiin, dadkiina waa kala fogaanayaan, sidoo kale karantiilna waa jiraa ayadoo laga fogaanaya in coronavirus uu sii faafo. waddamada qaarna waaba qasab oo bandow ayaaba jira, oo meel dadku iskugu imaan karaan ma lahan, masaajid ha ahaato ama baar laga cunteeyaba. In fact, fasting is believed to be beneficial to the body in a number of ways, including through the effect it has on boosting our immune systems. sidaa awgeed, soonku ma waxyeeleynayaa caafimaadkaaga mise fudaydinayaa in coronavirus kugu dhaco? waxaa la xaqiiqsaday lana aaminay in soonka uu muhiim u yahay caafimaadka siyaabo kala duwan, ayna ugu weyn tahay inuu kor u qaado habdifaaceedka jidhkeenna. dadka sooma oo faa'iidada u arkay ma ahan muslim bas, gaalada sida kiristanka iyo judiisamka ayagana waxay leeyihiin waqtiyo ama bilooyin ay soomaan, ayagoona aaminsan in caafimaad iyo cibaado ay ku jirto. waxaa jirta taariikh ah in mar masaaridii hore ay u soomi jireen si ay isaga ilaashaan xanuunada ku dhici lahaa, ayagoona soonku u arkaya daawo ka hortagta jeermisyada. dhammaan hadallada aan soo sheegay waxay u wada socdaan hal meel oo ah soonku si kastaba waa faa'iido caafimaad ahaan iyo ajar ahaanba. cilmi baarisyada caafimaadka ee lagu sameeyey soonka waxay sheegayeen in soonka uu kor u qaado difaaca jidhka, yareeyana caabuqyada ku dhaca unugyada jidhka. sidaan ayayna wax uga dhacayaan jidhkeenna markii la sooman yahay. inta aan soomanahay jidhkeenna waxa uu gelayaa xaalad ah
inuu tamartiisa ilaashado maadaama aysan jirin wax nafaqo ama tamar laga helayo oo jidhka soo gelaya. Si uu u kaydsado tamartiisa, waxa uu dib u isticmaalayaa unugyada difaaca ee dhintay. Markaas kadib ayaa jidhka waxaa lagu amrayaa inuu soo saaro unugyo cusub markuu qofku afuro, waxaana imaanaya unugyo difaaceed oo caafimaad qaba, kana shaqo fiican kuwii hore, tirtirayana infekshan badan oo jidhka ku jiray. Sidoo kale waxaa jira baaritaano ayagana la sameeyey oo sheegaya in biyaha oo la moogaado 12 ilaa 24 saacadood ay hoos u ridayso difaaca jidhka, aadna u nugushahay infekshan kasta. Laakiin waxaa daba taal taas marka aad afurto in difaaca kaagii hore ka wanaagsan aad helaysid. Caafimaad ahaan, waxaan kaaga digayaa inaadan cunin cunooyinka shiilan sida sambuuska, hilibka iyo kuwa saliidda ay ku badan tahay. Kuwaas ma ahan cuntooyinka u roon qofka marka uu sooman yahay, ee isticmaal kuwa qofka u wanaagsan marka uu sooman yahay, oo aan dib kaga hadli doono fiidiyoyadeena kale ee soo socda. Inta saacadood ee qofka uu soomayo waa lagu kala duwan yahay, waxayna ku xiran tahay hadba meesha aad joogtid caalamka. Laakiin waxa kaliya ee la isku raacay ayaa ah 12 saacadood oo aad soontid maalintii bisha soon in difaaca jidhkaaga uu kor u kacayo. Diinteena Islaamka waxayna faraysaa qof kasta oo awooda bisha soon inuu soomo, laakiin ma ahan qofkii aan awoodin inuu isdhaho difaaca jidhkaaga kor u qaado oo soon. Mana u wanaagsana nafta xanuunsan ee aan awoodin in lagu dhibo kadibna xanuunkii ka sii daro. Ugu dambayn, maadaama ramadaanku uu ku soo aaday xaalad dunida uu ku jiro cudurka COVID-19, lama hubo inuu ka hortag u noqon doono ama uu yahay, balse waxaa muhiim ah inaad samaysid inta la ogyahay hadda ee u ah ka hortagga cudurkan, oo ah ka fogaanshaha dadka iyo meelaha lagu badan yahay. Sidoo kale gacmo dhaqashada, nadaafadda, iyo inaad iskarantiisho haddii aad calaamadaha cudurkan isku aragtid. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku ogyahay daawada. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe channelka. Haddii aad ka heshana like saar muuqaalka. Mahadsanid, wabilaahi tawfiiq. Ramadaan wanaagsan mar labaad.